madaxweyne Cabduqaasim Salaad Xasan waxa uu magacaabay 3 ra'iisul wasaare. madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah uu naxariistay waxa uu magacaabay 2 ra'iisul wasaare. madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu magacaabay 3 ra'iisul wasaare. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isna waxa uu magacaabay 3 ra'iisul wasaare. balse muddo 2 sano ah farmaajo waxa la shaqeynaya hal ra'iisul wasaare waana Xasan Cali Khayre. iska daa bedel xitaa wali isku ma aysan dhicin. ma isweydiisay waxa isku haya farmaajo iyo Khayre. xulashada farmaajo iyo Khayre waxa qayb ka ahaa aqoon hore oo uu u lahaa. si ka duwan madaxdii isaga ka horeysay looma keenin ra'iisul wasaaraha. tani waxa ay yareysay fursadaha isku dhaca labadooda. farmaajo waxa uu ra'iisul wasaare soo ahaa muddo 6 bil ah xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed kadibna si aan la jeclaysan ayaa loo eriyay. xilligaas waxa uu soo bartay awoodda uu ra'iisul wasaare u baahan yahay si uu shaqada loo egmaday u qabto, taasoo dhalisay in Khayre uu u madax baneeyo hawlihiisa. farmaajo waxa uu sameeyaa siyaasadaha dawladda isagoo jeexaya wadooyinka ay marayso dawladda, halka Khayre uu fuliyo go'aamada uu madaxweynuhu gaaray isagoo u madax bannaan habraaca iyo talaabooyinka uu qaadayo si go'aamada madaxweynaha loo fuliyo. siyaasiyiinta ugu miisaanka weynaa Soomaaliya sida madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal hore, xildhibaano caan ah iyo maamul goboleedyada ayaa bilowgiiba ka soo horjeestay dawladda iyagoo aan siin wax fursad ah. tani waxa ay farmaajo ee Khayre ku qasabtay inay mar walba mid ahaadaan iyagoo wajahaya hal cadow. dawladda Qatar oo la aaminsan yahay inay taageerto dawladda Soomaaliya ayaa xoog badan gelisay in aysan labada mas'uul iska hor imaan. Fahad Yaasiin oo ah maskaxda ka dambaysa dhismaha dawladdan oo labada mas'uulba saaxiib dhow la ah ayaa ka shaqeeyay hirgelinta arrintaas. Xasan Cali Khayre oo siyaasadda ku cusub ayaa samaystay isbahaysi gudaha gobolka iyo kuwa caalamka ah, taas oo siisay awood badan, waxaana adkaatay inuu u muuqdo ra'iisul wasaare tabar yar oo la bedeli karo isagoo sidaas ku hantay xushmadda madaxweynaha. 2 sano kadib sideed u aragtaa wada shaqaynta farmaajo iyo Khayre? madaxweynayaashii ra'iisul wasaareyaashii dalka soo maray kaalinteed ayaad ka geli lahayd? fikirkaaga noogu reeb qaybta hoose hana hilmaami inaad muuqaalkan laag saarto lana wadaagto saaxiibadaada. mahadsanid.